السودان ayaa waxa uu asaguna uu ka soo kabanaya colaad dalkaasi ka jirtay ayadoo dalka Suudaan colaadii iyo xukunkii gacanta adkaa ay ka farmaroojiyeen madaxweynaha inta badan talada halkaas haystay isla markaana ay direen iyagoo oo aan dalkoodii burburin walaw uu soo gaaray qalalaasay iyo qulqulatooyin wadanka ka dhaceen laakiin ugu dambeyntii wadanka ayaa wadan nabadiisu ay soo tarayso jabhadii ka dagaalami jirtay gobolka Blue Nile ka leeyahay iyo gobolka Kordofan ayaa iyaguna heshiis kama damaysa la saxday dawladda heshiis aad loo saadaalinayay isla markaana aad loogu riyaaqay ayaa ka dhacay magaalada Juba ee xarunta koonfurta Suudaan ayadoo halkaas uu tagay ama uu masalayay dawladda ku xigeenka golaha madax banaanida iyo qaranimada dalkaasi General Mohamed Hamdan Dagalo iyo madaxa guud ee jabhadda loo yaqaano jabhadda la yiraahdo Sudan People's Liberation Movement North taas oo loo soo gaabiyay SPLMN oo uu hogaamiyo Malik Agar iyo General Mohamed Hamdan ayaa waxa ay ku kala saxdeen heshiiska magaalada Juba oo dusha kala socday madaxweynaha dalkaasi koonfurta Suudaan mudane Salva Kiir oo asaguna markaasi doonaya inuu leeyahay inuu u gudo abaalka waqooyiga kadib markay iyaguna heshiisiyeen ninkii sida weyn ay isku markaasi dileen ee loo jiray Riek Machar Salva Kiir ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan uu noqon karo mid markaasi nabadda soo celiya afayeen oo hadlay jabhadda dagaalamaysa ayaa sheegtay inay ku qanacsan yihiin qaabka heshiiska loo xardhay oo qeexaya in la siiyo ismaamul hoosaad ay adanahooda iyo shuruucdooda gaar u noqoto taasoo u muuqata inay ka madax banaan tahay qaybaha kale ee dalkaasi Suudaan oo inta badan diinta islaamka lagu xukumo iyo shuruucda markaasi islaamiga iyadoo sidoo kalena ay ogolaatay ayaa la yiri dawladdu in ay wax ka siiso jabhadan xubnaheeda golaha wasiirada iyo dawladnimada dalkaasi lagu soo dabaalo haatan waxaanu qayb ka noqon doonaa dawladda Khartoum ayuu yiri afyeen u hadlay jabhadaasi markaasi Blue Nile gobolada iyo koonfurta Kordofan ka dagaalamayay muddo dheer wuxuu yiri haatan waxaan ku qanacsanahay qaabka ay u socdaan waxaanu doonaynaa in aanu ugu dambeyn sii deyno heshiis buuxa kaasoo SPLMN iyo dawladda Khartoum ay ku heshii doonaan ayuu yiri afyeen u hadlay jabhadda oo leeyahay Yaasir Saciid Arman Mr. Arman sidoo kalena ah ku xigeenka madaxa markaasi hogaamiye Agar leeyahay ama Malik Agar waxa uu sheegay in heshiiskan uu noqon doono mid kama damays u noqdo dadkiisa isagoo sheegay in dawladda iyo dadka reer Kordofan ay heshii doonaan halkan nagala socotaan daawadayaal waa warbixin dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawasha qiimaha leh ee madaxweynaha